السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن إذا الأهانتي بداودياشي إذا قيمها إيا قاياها مدنو meel kastood caalamka joogtaan halkani waa Somali Channel studio uu ku leeyahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota daawadayaal waa barnaamijkii saadaasha dhacdooyinka oo alaab iga bartaan inaan idinkaga soo tabiyo dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis barnaamijkayga ayaan maanta daawadayaal waxaan ku eegi doonaa sida aan warbaahinta kala socono waxa jira in Soomaaliya ay leedahay shidaalkaas oo noocyadiisa ay kala duwan yihiin ilaa iyo haatan lama helin kheyraadkiisa cid la soo baxdayna ma jirto waa dal barwaaqo oo dadkiisu baahan yihiin haddaba annagoo maantay ku martiqaanay barnaamijkayga mid ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed si aan macluumaad uga ogaano bal shidaalka Soomaaliya ku jira iyo geeska Afrika aad moodo hadda inay culays saarayaan dawladaha reer galbeedka ah ma waxaas ka soo dhamaaday shidaalkii dawladaha Carabta ah maxaa keenay geeska Afrika in haatan culays la saaro Soomaaliyase waxa jira heshiisyo ay gashay oo ku saabsan dhinaca shidaalka nooc kasta ba ahaadeen dawladda hadda jirta iyo kuwii hore ee ku meel gaarka ah intaas oo dhan balse aan warbixin dhab uga helno ayaan barnaamijkayga daawadayaal maanta ku eegi doona anagoo uga faa'iideysanayna aqoon-yahanadeenna Soomaaliyeed waxa barnaamijka marti igu ah Rashid Qaasim oo loo yaqaano Alcade waa PhD Petroleum Engineering waxaan maanta ka wareysan doonaa barnaamijka shidaalka iyo badda la isku hayo ma shidaalba mase waa wax kale Soomaaliyase maxaa iyada haatan u taala inay wax ka qabato sidaas wax u qaban kartaa Rashid Qaasim horta waan ku mahadcelinayaa barnaamijkayga waqtiga aad siisay ugu horeyn inta aanan daawadayaasheeda iyo barnaamijkii gelinba bal taariikhdaada oo kooban iyo aqoontaada bismillaah alxamdulillaah wa kafa walaal cawl waa mahadsantahay adiga iyo bahda Somali Channel sida wanaagsan ee igu martiqaadeen in aan ka qayb qaato aqoon isweydaarsigan iyo barnaamijkaaga marka ugu horeysan ummadda Soomaaliyeed adduunka dacaladiisa meesha ay joogto assalaamu calaykum baan leeyahay kadibna haddaan su'aasha ay weydiisay u gudbo walaal taariikh nololeedkayga aniga dadka Mareykanka ee in doora joogaan ahaa iminkana saad sheegtay shirkadaha shidaalka ayaan u shaqeeyaa oo petroleum engineer baan ahay ka hor waxaan ahaa on PhD ka suubinaya petroleum engineering University of Missouri on research assistant baan ka ahaa ka horna shirkadahan waaweyn ee Mareykanka ayaan u soo shaqeeyay waxaan u soo shaqeeyay BQ shirkad la yiraahdo waxaan u soo shaqeeyay ConocoPhillips waxaan u soo shaqeeyay Chevron marka intii 10 sano ugu dambeysay shidaalka ayaan ku dhex jiray waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay horta su'aasha isweydiinta ayaa waxay tahay imise qaybood ayuu shidaalka u kala baxaa si aan u ogaano bal qaybihiisa kala duwan walaal waa su'aal wanaagsan horta shidaalka inagu waxaynu shidaal u naqaano laba horta marka ugu horeysa u kala baxaya oo hydrocarbons waxa ereyga Englishka lagu yiraahdo ama petroleum systemka ama wuxuu waa oil ama waa gas yani waa sida oilka waxa ka laga helaa naaftada dieselka yani sida waxa liquidska oo sida biyaha oo kale u shumaya gaaskana waa gaaska dabiiciga ah korontada laga soo saaraa waxa kale oo warshadaha wadamada aad warshadaha u hormaray sida Mareykanka oo kale ayaa aad u isticmaala marka shidaalka adduunka ku jira shidaalka Liibiya ugu wanaagsan wuxuu ugu wanaagsan yahay waa shidaal nadiif oo isla markiiba aad bagaariga ku shuban karto yani wasakhi kuma jiro midka Canada markaynu barbar dhigno midka Canada waa heavy oil light oil marka ka Canada waa ku wasakh badan oo marka fuustadii barmiilka 2 fuusto 3 fuusto oo carra iyo wasakh la socota marka horta shidaalku saas uu kala wanaagsan yahay laakiin su'aashaad haddaan dhinac kalena ka fiirino waxa weeye marka shidaalka la baaray saddex baa loo kala qaybiyaa oo yani qayb waa baaritaankiisa hore qaybina waa transportationkiisa oo shidaalkii in meeshii laga soo saaray meeshii looga baahnaa la geeyo dhuumahan saliidda qaaday ku qaadaan qaybna waa refinery-ga oo in saliidda ilan waa ceeriine la sifeeyo si midda gawaarida shidaalka dieselka gawaarida lagu shubto ama ka diyaaradaha aviationka ama waxyaabahan yani fuustada shidaalka shaygeeda ugu khafiifsan waa gaaskan korontada laga dhaliyo kan ugu xunna waa laamiga aynu dhulka ku hagaajisan waa tahay inagu dabcan waxaanu ka soo jeednaa geeska Afrika sax sida hadda indhaha caalamku ay moodo inay ku soo jeedaan ama dadka daneeya dhaqaalayahanada ama dawladaha doonaya in ay helaan macluumaadka shidaalka hadda geeska Afrika waxaad moodaa inay indhahoodu aad u fiirinayaan dana kasta kala hadaan marka danaha ay kala yihiin madana shidaal ba ama dana kale walaal geeska Afrika horta markaad Afrika fiiriso
geeska Afrika shidaal badan lagama soo saari jirinba yani meel laga qosto kale u ekayd ceelal badan baa laga yar qodqoday ceelashii marna gaas baa laga helay iminka shirkadihii waa u soo jeesadeen oo shidaal aad u badan wadamada dariska in laga hadayno fiirino Kenya shidaal baa laga helay gobolka Soomaalidu ay degan tahay Ethiopia asaga shidaal waa lagu ogaa ilaa 78 laakiin iminka waati maalinkii dhaweeytay ay shirkadda Chinese-ka Paris soo jabhada ONLF ay isku dhaceen dabadeedna shirkadda ka xaraday Uganda shidaal baa laga helay South Sudan iyo Sudan waatay kala go'een labadaba shidaal bay leeyihiin laakiin kan ugu weyn waa kan Mozambique xeebteeda iyo xeebta Tanzania laga helay oo iminka markaad fiiriso East Africa turbinku wuxuu saaran yahay xeebaha shirkaduhu aad u xiiseynayaan shidaal gaaska laga helay Mozambique iyo gaaska laga helay Tanzania يعني أفريقيا أنت هذا كله كبدنيا خبرة قارئ قبته طبعا صوماليا ما لها وحب ديرتهاي إكستوولي وحلاقيه لين ورجل وافي عنها واطاي هدين أسوأ نقولنا صوماليا بارست هذا الشدال كجورما أيه بلابتي حاجة بيش كودم بيش والسؤال وناكسن أول صوماليا كون سجال بقول iyo konton iyo 6 ceelkii ugu horay konton iyo 8 hoobiyo 1 ceel orange oo hoobiyo agteeda laga qoday shirkadda Ajib la orange oo iminka Talyaaniga la leeyahay Mareykankana way joogtaa baa ka qoday ceelal ilaa 63 ceel baa laga qoday wadanka Soomaaliya labadii ugu dambeysay waa labadii hadda iminka dhow laga qoday Dhahoor Puntland Soomaaliya shirkadda African Oil ay ka qoday ka hor 60 كو عيل بيهاين وعيل كي يقدم بيه وحنا مالنا أنتين الدولة الصومالية محمد سيد بربرون لكن لبدي إيمن كي يقدم بيه وضدك الصومالي ده قاعد يقول رجوين عين شركات ما وحي شركات شاكتي ما وجي معلومات بدن إلا عيل كمركز القضاء face or testing and evaluation لده هو يعني إلا تجابيه ماشي محل على كل ما شيء ذلك كل شيء قياسي أنتوا لقي هاي بالجلية لكن شركات وحي موداوحي بدربي إسكولابت كي هوري aad rajo wanaagsan uga muujiso oil show yani systemkii shidaalka meesha waa ku jira marka 3 kilomitir bay dhinac uga leexdeen dabadeedna waa ku Shabelle North qoday Shabelle North waxay dheen biyan ugu tag wixii tijaabadii loo baahnaa oo sanad ilaa 5 sano qaadan ka dhana gabi ahaanba waa joojiyeen laakiin aniga sida aan ka warhayo shirkadani waxaa la siiyay labada block Dhahoor iyo Nugaal waa Dhahoor ضرور ميا ضرور اوكي ضرور اوكي ضروري نقال بالسي نقال بامركا وماشي شركه دي كانوكو فيليبس oo dadka Soomaaliyeed inay wada og yihiin oo ilaa 93 Soomaaliyeed joogtay meesha ceelasha ka qoday weey waana dhulka Soomaaliya marka la fiiriyo nawaaxiga la isleeyahay dabcan waa meesha ugu wanaagsan waa burcaaso kadeeda laga soo bilaabo ilaa laascaanood baa la marayaa buuhood waxa wada boocame garowe ilaa dadka qaar xeebtii gaarsiin laakiin boocama iyo nawaaxigeeda bay aad u fiican tahay meeshaas aan wanaagsaneyd rabtay inay ka qodo laakiin waa u suurtoobi weyday kanooka tir meesha isku matay ka dhac maxaa arintaas saldhig waa marka arinta waxa saldhig waa ilin heshiisyo hore jiray heshiisyadii hore oo dawladii ugu dambeysay ee la ogaa ee la yaqaanay heshiisyadii shirkadihii la gashay heshiisyada waxa jira qayb looga baahan yahay dawladdu inay fuliso qaybna shirkadda looga baahan yahay amniga oo kala dawladda ay inay fuliso mar haddii amniga soo dawladda ka soo bixi wayso force dijo la xal dhaho yani adaa dawladii ka soo bixi waayay amaankii baad sugi weysay marka ayagii banaankay taagan yihiin inaan soo laabanana waa rabnaa hadaa amaanka sugtid weey laakiin hal shay hadaan ku daro heshiisyadaasi run ahaantii in dib loo fiiriyo u baahan yahay maxaa yeelay dhulka meelaha qaar 60,000 oo kilomitir oo square baa leeyahay shirkad ka baar dhowr ceel bay qodaysaa 6,000 kilomitir yani waxa laga yaabaa Burcaym ilaa Garowe laba ceel markaa ka qodo shidaalka waxa laga yaabaa meel 5 kilomitir ku jiro inuu jiif marka waxay ahayd in blogyadan la siiyo dhulkaas u baaxad weyn aan la siin la yareeyo dabadeedna ayaga la gorgortamo shirkadahaasina waa shirkad aad u wanaagsan shirkadaha adduunka ugu waaweyn waa loo baahan yahay waa tahay mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya dhowr bilood ka hor waxa ay galeen heshiisyo waxayna la galeen shirkado shidaal arintaasi sidee bay suurtagal u noqonaysaa shirkadii hore heshiiska ula galay Soomaaliya iyo kuwan cusub ee hadda galaya iyo maamul goboleedyada heshiisyada galaya oo iyaguna dhinacooda kala tartamaya dawladda federaalka ama de burburkana uu keenay maaragtay in awoodda ay noqoto mid qol walba dhinaceeda ka wado sidee la yeelayaa walaal su'aashani waa su'aal oo isku cakiran
arrintan arrin cakiran weeyo waayo horta laba aynu u kala qaadno bal horta heshiisyada dowladda federaalka ay gashay maxaa yeelay sharciyan international lawga marka la fiiriyo in ay heshiis federaalka inta la hilgeliyo la kala qaybsado taas oo mowduuc gooni ah dowladda federaalka loo baahan yahay inay naj khayraadka wadanka ay heshiisyada gasho ilaalisana marka heshiiska aad malaha ka wada waa kii Soma Oil heshiiska Soma Oil heshiis khariban weey yani dhinaca kasta marka fiiriso annaga hadda gorgortanada shidaalka iyo waxay kamid tahay qaybaha marka petroleum engineering aad galayso afar shardi oo la fiiriyo jira koow shirkadda ay dawladdu la galayso koow waa inay dhaqaale ay heshiiskan ay galayso ay ku fulisaa leedahay laba waa inay khibradeeda leedahay oo ayna dhihin adigaan kugu barbaranaya meel kale oo shidaal ka soo qoday baajida saddex waa inay khubaro leedahay wixii fulin karo ay meesha keenayso midda afraad waa inay diyaar u tahay inay long time deal gasho ilaa shidaalka 30 sano ilaa 40 sano socda marka Soma Oil marka fiiriso bisha ay saxiixayso bishii ku horeysaba ayada dhanba shirkaddan baa la abuuray marka waxaa moodaa waa mashruuc ama qandaraas ay dad khaas ah wataan oo inaba yaraatay wax faa'iido ah ay ugu jiraan ummadda Soomaaliyeed aniga sida ay muuqata waa tahay Soomaaliya waxa ay qaadatay federal waagi horena Soomaaliya sida loo ogyahay waxay central maantay awoodda waxay noqonaysaa in si cadaalad loo qaybsado gaarina labada nin kama wada qosliso sida loo ogyahay sax dhul baa dadkiisu badan yihiin dhul weyn ah dhul baa dhul yar ah dhul baa shidaal ku badan yahay dhul buu ku yar yahay waxa soo dhan bal faahfaahin naga sii sidee loo qaybsanayaa sidee bay suurtagal u tahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ugu heshiinayaan macluumaadkan shidaalka iyo awood qaybsigiisa walaal waa su'aal aad u wanaagsan dabcan u baahana in aad loo dhirindhiriyo horta afar mawduucaas dhowr jeer oo la weydiiyay afar qodob oo muhiim ah horta in meel la dhigaa loo baahan yahay hadii la rabo arrintan in xal laga gaaro hadii kale isqi qabsi baa imanaya shidaalkuna corruptionkiisa iyo musuqmaasuqiisu waa badan yahay hadda wadanka Nigeria la dhaho yani ma jiro wadan shidaal soo saara oo khayraadkiisa intuu ka faa'iideystay meel ka dhigtay oo Norway iyo wadamadan Carabta Khaliijka ahayn inta kale waa cimiladii baaba wabiyadii buu shidaalkii aafeeyay kalluunkii waa barbareerihii waa halaabeen marka arrintan waxay u baahan tahay afar qodob oo muhiim ah koow khayraadkan wadankan Soomaaliya shidaalka ku jira Soomaaliya oo dhan buu ka wada dhaxeeya horta in la isla qeexo meel la isla dhigo weey labo wixii waxa loo baahan yahay si cadaalad ah yani luqadda Ingiriiska waxa lagu yiraahdaa fairness accountability and transparency waa saddex qodob ay isdul saaran koow horta wax sidii cadaalad in loo maamulo labo wixii transparency inayna musuqmaasuq iyo khiyaano soo gelin labo in xisaabtan uu jiro shilling dollar $1 meeshuu maray in waxaan public inta laga dhigo heshiis kastoo la gelayo midda saddexaad deegaanada iyo dawladda federaalka waa khasab deegaanka shidaalka laga soo saaro dadkiisu khayraadkooda inay faa'iidadeeda arkaan maxaa percentage baa laga siin karaa waxa infrastructure-ka qayb baa loo qoondeynaya ilaa tusaale ahaan hadda magaalada oo ceelasha laga qoday sida Boocama agaarkeeda ama Qoryoole oo kale aynu soo qaadano kaba soo qaad Qoryoole baynu soo qaadanay dadka deegaanka area-da gobolkaas degan oo kale waa in percentage ayaga ay helaan laba waa in infrastructure-ka jidadka loo dhisaa shidaal gas baa la socda waa in korontooyinkii iskuuladii isbitaalada waa inay dadkii sida Dubai markaa tagto waxa soo dhan shidaal baa laga dhisay marka dadkii deegaanka markay wanaageeda arkaan ugu dambeyntii dadka localka shaqada muruqmaalka shaqada shahaadada u baahan nin engineer oo kale loo baahan yahay ta shirkadu waa u baahan tahay in wixii shaqadii la'aantiis ma socon karo laakiin shaqooyinka ugu badan waa shaqooyin muruqmaal oo qofkii training yar oo 6 bil qaadanaya la siinaya uuna ka shaqeyn karaa marka waxa markii loo nadaamiyo ugu dambeyntiina waa guddi lagu heshiiyay oo aan yani dad political appointees oo ama madaxweynuhu iska appoint garayno isaga magacaabin ama prime ministerka ama gudoomiyaha baarlamaanka ama wasiirada khaas inta maamul deegaanada maamul goboleedyadu ay ka jiraan iyo kuwa ay ka jirin 18 gobolba inta Soomaaliya wada fariisato dad khubara waxaan in loo dhiibo shuruudahana lagu maamulo waa tahay caqabad kale ayaa jirta iyadana oo aan filayo inay dhibaatadeeda wadato taasoo ah Soomaaliya federaalka gobollo aan awal islahayn ama magaalooyin aan islahayn ayaa waxay israacsiinaya federaalka arrintaasi waxa hadda jira magaalooyin awal aan ka tirsanayn magaalooyin kale laakiin hadda sheegay inay ku biireen
مثلا waxaan ka soo qaadaynaa degmo ku taal gobolka Mudug Saaxo oo hadda sheegay inay ku biireen Puntland hadii ay jirto magaalo haysatay shidaal fiican ama badan gobolka lana ka tirsanayd hadii inta xanaaqaan ay yiraahdaan anagu gobolkan waa ka baxna gobolkaasaan ku biirnay caqabada noocaas sidee baa laga yeelayaa horta khayraadka walaal horta Soomaali weyn ognahay dadkii kalsoonidii baa burburtay marka kalsoonida in la soo celiyana daacadnimo iyo cadaalad baa loo baahan yahay هذا سؤال أي ويديسي أو كله يعني سومالي ده واحد أركت عيل كبيه إسكو دران وإنه الله وضع صعنا عيل بيد بلبته له إسكو دقن يعني أنا هذا وضع كهدو نبض نقول لها وكله إن شاء الله هو وحنسوق ندونا تلفزيون كا وسيمرنا مركب علاش الشدالك ولا بكيلومتر 3 كيلومتر 4 كيلومتر الجهوستي در لو قضية دبلنا 3 كيلومتر إلا 4 كيلومتر تشيفة يعني lateral and horizontal drill vertical and horizontal drilling marka ceelasha biyuhu baa la isku diriraa maxaad u maleynaa ceel shidaal ah oo 10 kun oo foosto maalinkii soo saaray ama 1 milyan oo dollar min baa shaar qabiil soo gashan doona nin baa dhihi doona deegaan hebel waa ka baxay deegaan hebel baan ku biiray waxaas oo dhan waxa lagu maamuli karaa in marka ugu horeyso horta koow in waxa laga ilaaliyo khiyaanada hadda heshiisyadan Sooma Oil oo la saxiixay ilaa iminka dad khubaro badan oo Soomaali anaga waan iska warhaynaa qof arkay ma jiro marka wixii marka saa loo qarqarinayo corruptionka waxa ugu badan ee loo qaban laayahay ama musuqmaasuqa waxa weeye mar walba meel mugdi ah lagu heshiiya marka hadda taas oo kale waxa looga gudbi karaa heshiis kasta oo la saxiixayba Soomaaliya ilimka dibadda joogta in rug internetka inta looga soo biyo ciwaan looga soo biyo dhaho heshiis kasta oo la galo lacag kasta oo ka soo baxda 18 gobol loo qaybiyo ama gobol hebelka ilaa gobolka iminka hadda degmadaas oo kale gobolka Mudug bay ka tirsaneed kama yani meel kale kuma biiri karo yani waxa lagu salayn karaa goboladii hore 18 ka heleeshiyay ama gobolka Puntland ha kamid ahaado ama meel kale iminka ha ku biiro sida gobolada dhexe oo kale yani wixii hadii la dhaho 18 gobolkan baa laga soo saaraa 5% marka ugu horeysa gobolkaas la siinaya federaalka qayb qaadanaya percentage kala soo hartan haddana 18 gobol baa loo qaybinaya marka gobolka laga soo saaro oo kale laba jeer buu xiliyaa laakiin wixii in daacad lagu maamulo baa muhiim waa tahay inta waxaanu kaga gudbaynaa qaabka federaalka iyo maamul goboleedyada ay wax u qaybsan lahaayeen arrin waxa jirta iyadana u baahan in laga hadlo Soomaaliduna ay dhagta u wada taagayaan doonayaan inay wax badan ka ogaadaan taasoo ah muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ahba arintaas si gooni ayay uga hadlaan dadka Soomaaliduna inta badan social media markaad aragto waxa ay ka bixinayaan comments ama aara ama fikrado qolo walba si ay u aragtaa laakiin su'aasha ugu badan oo isweydiinta la ayaa waxa ay noqotay maxaaba keenaba badda Soomaaliya horta in laga wada hadlo waa su'aal qof kasta oo Soomaali aniga aan kamid ahay aynu isweydiinayno laakiin aniga kulli markaan fiiriyay horta badda Soomaaliya laba qodob oo muhiim ah aan dhihi karnaa baa asaas u ah mar waa daciifnimada Soomaaliya Soomaaliya iminka xuduudadeedii ma ilaashan karo marka baadiinimo aan lahayn bay ag joogtaa weey meeshii khayraad baa ku jira de horor kastaba inuu ka faa'iideysto isku dayaya marka horta koow waa daciifnimada ummadda Soomaaliyeed haysata dawladda oo daciifa oo dadka Soomaaliyeed dad qabi ku jirto isla weyn xoolahooda ilaashada iscaawiya walaala ah bay ahaan jireen laakiin iminka waxa moodaa tiidashada ka baxayso mar waa daciifnimadaas midda ku xigta meeshan hadayna waxba ku jirin la isku maqaqabsadeen waa arrin muhiim ah Soomaalidu inay fahanto يعني meeshan haduu kalluun ku jiro la isku maqaqabsadeen mar ujeedada ay Norway ka leedahayna waxa wada Kenya ka leedahay oo Norway ay caawinaysan waxa weey teen iminka gurigaaga haduu kugu qabsado qofkii kugu qabsaday umad Soomaaliyeed way wada naqaado wadamayntu waxay tagaysaa ninkan ama wax si ama wixii halaydeen qaybiyo marka dawladda Kenya sina kuma khasaarayso saayada Soomaaliya iminka hadda malaha su'aashaas way ku xigtahay yani labada arrin oo muhiim ah waa Soomaaliya oo daciifa iyo meeshaas oo hadayna wax ku jirin khayraad aniga kulli fikradeyda horta nawaaxigaas waa nawaaxi shidaal badan lagu tumeeyo maxaa yeelay kalluun la isku maqabsadeen marka dadka Soomaalida ah ee waxaan saxiixay inay isweydiiyaan baa loo baahan yahay waa meeshan corruption baa ku jira dabcan laakiin
ma isweydiisa khayraadka dhulka badda hoosteeda ku jira ee aad qalin ku saxiixayso inta uu leeyahay waa su'aal meesha ku jirta waa tahay badda Soomaaliya xilliga uu murankeedu bilowday ama miiska la soo saaray ama warbaahinta laga maqlay waxay soo bilaabatay sanad markay ahayd 2009 markaasna Soomaaliya waxa ka jiray dawlad ku meel gaar ah oo federaal ah dabcan dawladdu mas'uuliyiin bay leedahay xil baa saaran dalka ay madaxda u yihiin dhulkiisa iyo shacabkiisa iyo sharcigiisa ay dabcan mas'uul ka yihiin مسؤولينتي هذا إن أنا يحلهم بان أمالينيا لكن مسؤولين كلا كلا وريجا ودنكي سيدابة ولا معاملين سيدابة يشربان إنه وهر تجان أرنتان قطرت هذا وضته أول دي الدنيا وبدي إلا جاب صدرنا ولا هرت ده خبره وحن الله صاري وشدة مدحوينها ما له يدوا أركيا سجولة ضد صوماليات بهشيس كان وجود بيه ضد صوماليات وخبراء يضد شيء نجا عوي لكن أنا جو كم ورحين horta waa mid waxa loo baahnaa dad khabar oo Soomaali ah in loo saaro laakiin taa waxa ka horeysa maxaa priority maxaa arintan muhiim uga dhigay Soomaaliya nabadii bay ahayd in muhiimka la saaro dad xiriiq xooti ku jira oo u baahan in deegaankoodii dib loogu celiyo ayo noloshoodana wax laga bedelo maxaa dawlad kasta oo imaaday ku saliday badan يعني waxay ku tusaysaa dadkan mas'uuliyiinta ahi in aynan ka turjubayn rabitaanka ummadda Soomaaliyeed oo markasta ay arintan dabcan pressure baad dusha laga saaraya dawladda pressure ku jira hadaan hadda u sii dhaadhacno xeebtan horta xuduudda ay Soomaaliya la leedahay Kenya laga bilaabo ilaa iyo marka xarar dheer la gaaro waxaa jira 1982 shirkad Western Geo la oran jiray waa shirkadda waxay soo bisaa oil and gas exploration bay soo bisaa shirkadihii marka Soomaaliya rajaynayay ba waxay ka codsadeen inay 2D seismic soo biso marka shirkadda Norway baa laga lahaa shirkaddii markii ay meeshii soo bisay shirkadda Norway ah wixii marka 2D seismic waa habka lagu fiiriyo meeshan shidaal ma ku jira mise kuma jiro marka Norway shirkadaheedii waxay isku dayeen inay meeshii wax ka soo galaan laakiin dawladda Maxamed Siyaad Barre oo dawlad qab leh oo isla weyn oo ayaheedana wadankana gacanta ku haysa ba shirkada Mareykan oo waaweyn iyo shirkad British mid Talyaani shirkada ka waaweyn baysis marka rag khubaro oo dhowr aan isoo wareysan anigu waxaan aaminsanahay Norway inay ogaatay meeshaas waxa ku jira xilligaas maxaa yeelay shirkada ayada iska lahayd inkastoo shirkada iminka la gatay oo shirkad kala gadatay laakiin dawladda Norway way ogaatay si ay iminka meesha shirkadda Norway ku heli kadaan ma jiro maxaa yeelay hadii wadanka dago shirkadihii heshiisyadan la siiyay dib soo laabanay marka dawladda Norway waxay isku daysaa in intay jadho yani blog marka fiirisay ay Kenya bixisay hal shirkad oo Mareykan ah oo shirkadana dhaakol dhaho ayadu gacmaha ka istaajisoo tiray ilaa arintan laga xalinayo gelmayno shirkadda Norway baa blogyada leh state oil la yiraahdo blogyada xuduudda Soomaaliya soo saaran leh marka aniga waxa ila muuqataa inay Norway rabto dirishada inay ka soo gasho badda Soomaaliya inta badan markii la isku qabsado qayb Kenya loo xukmiyo sida muuqata kadib shirkadaha Norway iyo shirkado kale malaha isku jira la siiyo meesha inay shidaal ka baaraan waa tahay wax waliba waxa ay leeyihiin mas'uuliyad arinta hadda taagan ee muranka badda ninka Kenyaatiga ah ee awal arintan galay oo muranka galiya badda Soomaaliya muxuu bartay muxuu yahay maxaas ku kalifay inuu badda Soomaaliya isagu haatan muran galiyo mas'uuliyiintii uu la kulmayse adigu wax ma ka ogtahay wax sama ka taqaana si dadka Soomaaliyeed ay u ogaadaan cidda mas'uulka ka ah cidda saxiixday warqadaha lagu kala qaadanay badda Soomaaliya oo ilaa haatan aan xal loo helin walaal horta baddan Soomaaliya horta ninka Kenyaanka aynu ku hormarno ninka Kenyaanka Simon Njuguna ayaa la yiraahdaa wuxuu iminka kamid yahay waa members of the commission on the limits yani Soomaaliya iminka dacwaan gudbinay Soomaalaha dacwadaas khubarada loo gudbinayo board member bay leeyihiin oo United Nations qof kasta oo Soomaaliya shaashada telefishinka insha Allah waa la soo gelin doonaa uu arki karaa ninkan Kenyaanka horta iminka kuwaas oo ku biiray oo ku jira oo waa dadka badan la isku haysto go'aanka ka gaari doona waana ninkii aasaaska u ahaa
يعني shiishad kale waxaa jirta Kenya iyo Tanzania markay borderka xeebta badooda iyo borderkooda ku heshiinayeen borderka يعني xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya waa soo galaysaa leenkan ay dawladda Kenya intay saa u qalluucisay ay bad Soomaaliya ka jabsanayso kuma jir ninkii waxaan aasaasay weey marka dawladda Soomaaliya hataa meel ay iminka ku qodhay ma jirto inay codsato ninkaas horta inuu laga saa uusan arintan faragelin maxaa yeelay waa conflict of interest ninkii waxaan aasaaskii hore iminka bilaabay baa guddiga go'aanka gaarayna ku jira marka ninkanina يعني horta marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celino Somali Talk website kale yiraahdo aad bay arintan isugu taxallujiyeen waqti bay geliyeen macluumaad badan oo website-kooda waa ku jira website-ka United Nations ka UN Clause United Nation Convention on the Sea of the Law hadda tagto warqadihii ay Soomaaliya dirtay kuwii Kenya soo dirtay ninkan guddiga uu kamid yahay waa guddigan badan la isku haysto aakhirka ragga wax ka gaari doono ku jira marka ninkan inuu seminaar badan Norway u tagay waa la soconaa inuu New York u yimid waa la soconaa Ingiriiska mar uu yimid marka ninkan waa nin dawladdiisa ka dambaysa يعني ninkan in la eedo ma aha ninkan dawladdiisa ka dambaysa mashruuca waxa weeye qandaraaskan uu soo gudbiyay wuxuu yiri badda iminkan saan inuu leexinaynaa dawladdiisina waa ka yeeshay sida muuqatana hadda malaha su'aasha ku xigtay noqon doontaa arintu waxay maraysaa badii in muran la geliyo ujeedadiisa ugu weyn taas ah waata maadaama isagu yahay nin Kenyaati iyo dawladdiisana ay u tahay dawladda hadda ka caawinaysa in muran la geliyo badana uu isagu ku dhiiraday Soomaaliya kama liidato Kenya inkastoo de wadan dagaal bahsan oo la har iyo haddana aqoon-yahanada Kenya oo kale Soomaali waa ay leedahay ma jiraan aqoon-yahano sidiisoo kale inta wax u bartay ku raajooga inay ninkan iyo wax lamid ah aanay mar dambe badda Soomaaliya damac ka galin dawladda federaalka wax xiriir idinka ma idin la soo sameysay maadaama aad tiin aqoon-yahanadii waxan aqoonta u lahaa walaal waa jiraan dad Soomaali horta ninkan geology u bartay يعني geology-ga waa dhagaxyada macdanta ku jira iyo shidaalka ku jira rag takhasuskooda rag badan oo Soomaali oo PhD ku haysta geology jira rag PhD petroleum engineering ku haysta jira marka horta mid ugu horeysa Soomaali aqoon la'aan meesha ayna ma dhigin ee daacad la'aan baa ayna dhigtay mid waa midda ku xigta ee ummadda Soomaaliyeed in tooshka loogu ifiyo u baahan waxa weeye maxaa badan ay dawladda Soomaaliya iminka shaqo uga dhigatay una ogolaatay in muran la geliyo moogta wixii marka la isku qabsado labada qof la dhexaabin kara midda kale oo dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan u baahan law 37 la yiraahdo sharciga badaha Soomaaliya waxay claim garaysay ama ay sheegatay ilaa 200 oo mile laga bilaabo xeebta dhulka iyo badda meesha iska galaan laga bilaabo ilaa 200 oo mile yani shaashada inuu soo galin doonaa oo sida uu qoran yahay iyo sida uu qeexan yahay markaad aragto yani waxaad fahmaysaa dadkii xilliga joogay wadanimadooda daacadnimadooda iyo say u fiira dheeraayeen marka Soomaaliya sharcigan iminka EEZ Extended Economic Zone la yiraahdo 200 oo mile iyo waxa ka dambeeya wadanka ku soo cadidaya 12 mile ilaa xeebta dawladdii dalabtana 24 mile bay ka dhigi kartaa Soomaaliya 200 oo mile bay mar hore sheegatay dawlad saas oo kala jira heshiisyadana dawlado badan ma saxiixin Mareykanka inuu iminka joogno ma saxiixin marka dawladda Soomaaliya umaba ay baahnaba yani sharciga badda loo 37 baa ku filan xilligii loo baahdo baan anagu tagayna maxaa yeelay haddaad rabto inaad shirkado shidaal siiso haddaad rabto in maraakiibta meesha maraysa ay register gareeyaan 200 mile dawladda Soomaaliya United Nations kana 1973 bay u soo gudbisay وانا ratified madaxweynaha saxiixay guddiga soo saxiixay yani uma baahnaba dawladda Soomaaliya in ay arintan badda faraha la gasho xilligan marka xildhibaanada baarlamaanka iyo prime ministerka madaxweynuhu waa ku khaldan yahay arintan in la taliyayaashiisa iyo dadka la taliya u sheegaan ay dhahaan waa dabcan waa fahmaynaa pressure ba madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan saar in heshiiskan la dhameeyo Norway oo mushaharada bixisa wasaaradaha qaar ba xusul baruur meesha ugu jida marka madaxweynaha maadaama hadda hal qof baa fiiri intuu saxiixay waa soo saaray waan aragtay dawladda Soomaaliya EEZ-dan yani Extended Economic Zone oo habkan dambe oo badaha 200 bay rabtaa inay ka soo laabato 12 mile iyo 200 oo mile oo international sea laakiin aan aniga iska leeyahay Yemen bay ku qabsatay
qayb inaga iminka Kenya soo inaguma haysato dhulkii arintaas waxaan rabaa inaan u soo noqdo arinta Yemen tan rabaa inaan dhameeyo tan marka waxaa loo baahan yahay baarlamaanka sidii berigii horeba uu ku suubiyay inuu laalo oo darshada ka tuuro oo yiraahdo arintan waxba kama jiraan wax gorgortan ah aan galayna male laakiin waxa moodaa arintii iminka maxkamadu bay dawladda hadana u sii gudbisay marka arintan arin aad degdeg in wax looga qabto u baahan way oo la joojiyo barteeda lagu joojiyo waxaad leedahay macnaha arintan iyo keyskan looma baahnayn dawladda Soomaaliya inay furto iminka furto looma baahna sababa badan oo awgeeda loo khibaradeedii iyo awoodeedii ay badaheeda iminka ku sugan lahayd uma baahna sharci badeed bay leedahay wax khibaro Soomaali oo loo bandhigay ma jirto midda kalena dawladda Soomaaliya hadayba rabto in muran badda ay geliso Kenya waxba kuma ay qabsan oo leenka hadda Soomaaliya markuu soo galo maapka markaynu fiirino markuu dhulka badda u jiro 20 kilomitir Ingiriiska leexiyay intuu xuduudda inay siin wax yar buu saa u yar leexiyay haday rabto Soomaaliya dhinaca kale intay tagtay leenkii hore sidiisii ku soo socodsiin kartay oo qayb ayadana ka sheegan lahayd Kenya marka iminka hadda adig Kenya un baa wax kugu sheeganaysa adigana waxba kuma sheeganaysid waata Kenya marka bad raadis ma hay waa shidaal raadis Kenya khayraad u meesha raadinaysa waata marka maxaa la gudboon marka Soomaaliya hadda arintan in la sii wado iyo in halka lagu joojiyo arintan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed horta inay ogaadaan runta marka la sheego ummadda Soomaaliyeed kalsoonideeda dad ku jooga ma ah oo qof intuu tagay codkiisa dhiibto doortay ma jiro yani saas baa kalsoonida dhabta lagu helaa yani baarlamaan oo la isu keeno hab qabiil ku dhisan waaya laakiin ani waxaan qabaa arin saan u weyn oo kale in ay ka doodi karto ama go'aankeeda gaari karto ayadoo laga baaraan degay iyo dawlad sanduuqa codka ee dadka Soomaaliyeed rabitaankooda ku timid oo lagu xisaabtami karo madaxda oo lagu xisaabtami karo waa tahay arinta kale oo xiisaha leh ayaa Rashid waxa ay tahay Soomaaliya ayaa waxa ay ku qabsatay dhinaca kale bad dalka Yemen arinta iyada maxaad ka ogtahay goormaysa bilaabatay badda ay ku haysato waa dhinacee waa hadeer markuu madaxweynuhu warqadda uu soo diray ba XY coordinates ama longitude yani bartam ataaganta sida iminka GPS kaaga marka aad adresska geliso halkan ka bixiso halka u duulayso oo socoto kale waxay soo gudbisay dawladda Soomaaliya oo ay ka caawisay Norway waan banaankan soo dhigi doonaa qoraalka marka uu dhamaado hoos bay kaga qorantahay inay dawladda Norway ka caawisay gudbinta qoraalkan uu madaxweynaha gudbiyay marka qoraalkii la gudbiyay bay dawladda Soomaaliya Kenya waxba kuma ayna qabsanin kii anaga Kenya ugu haysatay waxay tiri anaga iskala Yemen bay ayadana ku qabsatay marka Yemen baa iminka waxay soo gudbisay ayadana qoraal bay United Nations UN Convention on the Law of the Sea ayadana qoraal soo gudbisay ay diidan tahay yani qoraalkan uu madaxweynaha soo gudbiyay ilaa dhulka badayadii bay qaar sheegteen marka waxa isweydiis leh dawladda Soomaaliyeed inta ay Yemen ku qabsanayso dhulka ninka kugu haysameed ku qabsatid يعني أرنتان وحي كتوسيسا dadka Soomaaliyeed inay xusuustaan ma aqaan xilligii madaxweyne Shariif uu joogay jasiiradda Sumatra calul ku beegan ee dhinaca buu mar asna ku qabsaday Yemen yani tani waa taariikhiyan waa la ogsoon yahay waa dadka Soomaaliyeed haday rabaan ma baan ayadana ka hadli doonaa laakiin xilligii uu Ingiriiska gobolada waqooyiga siinayay kuma uu sadarin inuu ku daray ahayd Yemen buu ku daray laakiin waa arin ay dawladda Yemen dhowr jeer iyo dawladda Maxamed Siyaad Barre rag oo bariga dawladda ku jiray aniga ii sheegeen way ogoleed in laga wada marka madaxweynaha qoraalkan uu soo gudbiyay waxa aniga aan la yaabay maxaa albaab kale iyo dhibaato kale aad u furaysaa iyo bad kale isku qabso bartan aynu xalino oo waxay ahayd ninka markuu wax kugu qabsado rag waxay isku daayaan rag waxay nabad ku kala aan isdeyn waxay inuu Kenya asagana intuu qayb ku qabsado ama uu dhaho wax aan wada hadal oo ogolnahay ma jiro marka iminka Yemen hadda iminka waa ku soo biidhay oo iyadii Soomaaliya xuduudeeda khilaafkaas bilowday oo warqadii madaxweynaha ka bilowday waata ma jirtaa hadii ay dhacdaba in badda Soomaaliya muranka la galiyo la qaato ama cid ay ku qabsatay ay wax ka qaataan cid mas'uuliyadeeda qaadanaysa oo Soomaaliduna kula xisaabtami doonto dabcan
dee taariikhdu horta raggii waxaan bilaabay baalmadow bay ku qoran yihiin dabcan in la sheegana waa muhiim waa cabdirashiid cali sharmaarke oo hadda safiirka cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ra'iisul wasaare noqday iminkana safiirka maraykanka oo fadhiya Soomaaliya waa cabdiraxmaan cabdishakuur asaga saxiixay waan hayaa labadooda bay ku saxiixan yihiin dad badan baa ku jira oo waxaan qandaraas bay ahayd qandaraaskan rag baa soo qaatay okaadi marka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sax Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu ahaa wasiirkii external affairs yani xiriirka caalamiga sax waata yaa kaloo kula jiray oo xilliga aad isleedahay iyaguna waxbay ka ogyihiin labadooda kaliya horta saxiixooda la hayaa dadka Soomaaliyeedna haday rabaan waa loo soo bandhigayaa labadooda horta ku saxiixan iminkana madaxweynaha intuu soo warqad dirin waxa ka horeysay memorandum of understanding oo Fawziyo wasiir prime minister ku-xigeenkan ahayd wasiirka arrimaha dibadda ahayd ayadana Kenya la gashay waata marka arintan waxay ku tusi qof kasta oo Soomaali oo mas'uul u imaada arintani waa taagantahay kuwii hore hataa markii baarlamaanka hore waa kii diiday iminka dawlad cusub baa timid sidii barteedii bay ka bilaabeen marka waxa weeye meeshan ugu dambeyntii meesha ku socoto Soomaali oo dhan waa u jeedaa badan qaybaad dabcan Kenya loo xukmin doona in eeba badbaadsada ma maxaa yeelay wax u taagan ba male dawladuna awood male dhaqaale male looyara la qabsan doona khubaraa meesha iman doonta yani tusaale hadan kaas iyo dawladda Norway iyo Ruushka badda Barents Sea North ay xuduudda ku leeyihiin bay isku qabsadeen yani dawladda Ruushka waa diidi kadib inay dhahdo oo awood bay u leedahay ay hataa maraakiibteeda kaga celi sida Chinese-ka hadda ay Vietnam ku suubiyaan yani waxaan badaha waa la isku haystaa hadda Chinese-ka iyo Vietnam badii bay isku qabsadeen China maraakiib dagaal bay keentay waxa meel aan geynaya ma jiray Ruushka way ogolaadeen maxkamadan iminka inuu anaga tagtay Norway baa ku guuleysatay marka inaad fahantaan waaye in la fahmaa loo baahan yahay Norway maxkamadan iyo systemkan waa taqaanaa Ruushka uga guuleysatay iminkana Kenya iyada caawinaysa marka maxaa ka soo bixi kara waata Rashid anagoo waqtigu yar yahay barnaamijyo kalena aan ka sameyn doono arintan warbixino si cad u qeexiya arintan soo gudbin doona maxaa talood ugu gudbinaysaa dadweynaha ku daawanaya ee Soomaaliyeed ee la socda barnaamijkan Saadaasha Dhacdooyinka ee ka daawanaya Somali Channel dadka walaalaha ee Soomaaliyeed laba arrin baan horta rabaa inaan u gudbiyo horta khayraadkan shidaalka wadankan ku jira waa inagu filan yahay waana inaga badan yahay hadaynu si daacad ah oo alla ka cabsi ku jiro maamulanayn midda labaad maalin walba in yar marka laga goosto hadda tani haday socoto qayb kala la goosanaa micishin ka dhig marka arintan waxay u baahan tahay yani Soomaaliya iminka aqoon yari ma hayso oo dibaddaas la wada joogaa dad baa wax bartay dad wadankii joogo u taagan baa jira waxa naga maqan isku duubnaashi inaan dad isku duuban intaynu noqono in arintan hal meel ka wada istaagno laakiin arintan iminka waxaaba gebigeeda xiri kara baarlamaanka Soomaaliya guddigu leeyahay guddiga khayraadka intay guddiga baarlamaanka horgeeyaan baarlamaanka ha u coday uma maleeyo qof shakhsi Soomaaliyeed inuu jiro oo damiirkiisa u saamaxayo bad aadan ogeyn khayraadka ku jira ilaa qof wixii aniga hataa petroleum engineering ka haysta khayraadka meesha ku jira ilaa wixii waxaan ka ognahay ba malaha meel fogna waa ka joogna meeshaas malaayiin dollar inay ku jirtaa laga yaabo oo qalin yar iyo dad yar oo damiir la'aan ay iska saxiixeen marka arintan inaynu u gurmano baarlamaanka uu arintan cagaha ku joojiya loo baahan yahay oo gebigeed ba joojiyo insha Allah waxaan ka rajaynaynaa xildhibaanada qaar baan balansanahay inaan la kulano haddii aan fursad noo saamaxdan insha Allah inaan xamar tagnaaba laga yaabaa waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Rashid waan kaaga mahadcelinay waqtiga qaaliga aad siisay daawadayaal kan wuxuu barnaamijkii Saadaasha Dhacdooyinka waan maanta kaga hadlaynay khayraadka Soomaaliya iyo badda lagu muransan yahay barnaamijkan ayaa waxa marti igu ahaa Rashid Qaasim oo ku magac dheer Mas'al Cadde waa PhD Petroleum Engineering waxaan idiin soo gudbinaynaa daawadayaal meel kastoo aan joogno barnaamijyo kuwan la mid ah si aan u helno macluumaadka dhabta ah ee ka jira Soomaaliya maxaa yeelay waa baahanahay waqtiga looma cuno Soomaaliya dagaal baa ka dhacay burbur baa ka dhacay dawlad la'aan iyo dhibaato fara badan baa nagu dhacday haddana waxa muhiim ah in haddii ay dhacdo arrimahan oo kale lala kaashado dadka aqoon-yahanada ah ama dadka la dhihi karo waa ay ka hortagi karaan si aanay beelaha u noqon caalamku waa ay soo mareen dagaalo noocan oo kale ah laakiin
annagu hadda waxaan isku dayaynaa haddii allah uu wada ogolaado oo aniga waliba Cawil Nuur Shira oo Somali Channel barnaamijkayga saadaasha dhacdooyinka inaan macluumaad badan idinku soo gudbiya haddii allah uu wada ogolaado barnaamijkan waxaa soo saaray Siyaad Ciise Saalax dhinaca farsamada waxaa iska lahaa Ismaaciil Muuse xiriirintu waa anigu Cawil Nuur Shira barnaamijkaygan wixii fikrada ama aaraa ah ama dhaliil ah oo aad hayso ama gubaaba ah fadlan noogu soo dir saadaasha dhacdooyinka @gmail.com waa emailka sida tooska ugu soo dhacaya barnaamijkan aad iyo aad baad ugu mahadsantiin daawadayaal meel kastood caalamka joogtaan waana idin mahad celinayaa taageeradiina iyo daawashadiina waad mahadsantiin